waxaa gobolka Minnesota lagu qabtay xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ururada bulshada iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid gobolada Mareykanka sida Seattle, Washington, Atlanta, Georgia, Washington DC, Boston, Massachusetts iyo Columbus, Ohio. munaasabadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay laguna talagalay in lagu xuso kulankii toddobaad ee habeenka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed kaasoo martisoorkiisa uu leeyahay aadan ugaas. xafladan oo ah mid ay bulshada ay sugto sanad kasta ayaa lagu bixiyay abaalmarino kala duwan. sidoo kale waxaa qayb weyn ka ahaa isku xirka dadka guulaha iyo horumarka ka gaaray guulihii ay ku taameeyeen iyo kuwa maanta hiigsanaya in ay ka dhabeeyaan kana guulgaaraan hamigooda iyo hankooda. sanadkan waxaa abaalmarino la siiyay Axmed Cali Cigaal oo ah fanaan caan ah oo ka tirsanaa hobolada Waabari, waxaana la siiyay abaalmarinta lagu magacaabo Grammy Legend Award taasoo hore loo siiyay fanaaniin dunida caan ka ahaa sida Michael Jackson iyo Smokey Robinson. waxaana abaalmarinta fanaanka caanka ah ee Axmed Cali Cigaal guddoonsiiyay Cabdullaahi Cabduqaadir Axmed oo ku magac dheer Soomaaliyo oo ka tirsan mas'uuliyiinta librariga weyn ee Library of Congress ee magaalada Washington DC. Cabdi Warsame oo la siiyay abaalmarinta Community Changer Award wuxuuna ku mutaystay maadaama uu yahay qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee dowladda hoose ee Minneapolis xilka qabta. sidoo kale wuxuu tusaale iyo dhiirigelin u noqday mas'uuliyiinta maanta gobolka Minnesota iyo Congress-ka xilal kala duwan ka haya oo asalkoodu yahay Soomaali. Faadumo Hirad oo lagu abaalmariyay First Award waa marwadii fanaankii Cumar Dhuule Cali Allah u naxariistee isla markaana soo noqotay gabadhii ugu horeysay ee noqota fanaan iyo wariye. Cabdiqafaar Aadan ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta Business of the Year Award wuxuuna door weyn ku leeyahay horumarinta ganacsiga magaalada Minneapolis iyo shaqo u sameynta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka ku nool. Xabiiba Maxamed oo la guddoonsiiyay abaalmarinta Inspire Award oo ah hooyo iyada iyo gabadheeda isku xilli ay ka qalin jabiyeen jaamacadda oo tusaale wanaagsan u ah hooyooyinka Soomaaliyeed. Khaliif Shire Muuse oo la guddoonsiiyay abaalmarinta Lifetime Achievement Award wuxuu ciyaaro kala duwan oo u matalayo xulka qaranka Soomaaliya ugu soo saftay gudaha iyo dibadda. wuxuuna u soo ciyaaray naadiyadii heerka koowaad ee dalka ka dhisnaa sida dekadaha Horseed iyo Jenyo. sidoo kale waxaa abaalmarino la siiyay ciyaaryahano iyo dad door weyn ka soo qaatay horumarinta sportiska waxaana ka mid ahaa ciyaaryahano lagu soo ababiyay ciyaaraha tan iyo markii ay yaraayeen oo la siiyay tababaro kala duwan oo lagu tilmaami karo mirihii ka dhashay barnaamijka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed kuwaas oo kala ah Ramla Maxamuud, Xuseen Cabdullaahi, Sabriin Cali iyo weliba hooyo Maria Farax. waxaa sidoo kale goobta ka dhacday xil wareejin taariikhda gashay oo noqotay midii ugu horeysay ee qof xil u haya bulshada in uu ku wareejiyo mas'uulka cusub ee xilkaasi la wareegaya taasoo ah abaabulida diyaarinta qabashada ciyaaraha sanad kasta lagu qabto gobolka Minnesota ee lagu maamuuso xuska maalmaha Soomaalida Somali Week. xil wareejinta uu sameeyay aadan ugaas ayaa ah mid tusaale u ah in qof kasta uu wareejiyo xil kasta taasi oo ah mid ku dayasho mudan. mas'uulka xilka lagu wareejiyay ayaa waxaa lagu magacaabaa Ciidruus Deqdar Join Facility في Minnesota. Flowers. هاي ما شاء الله. Yeah. ما شاء الله. هولكو عاودون عاودون يقروح كورونا فيروس كي يا دتك حنيباتكو هاي قفل با عاو si sharaf leh u soo labisteen barnaamijka caawa la isugu yimid ee intan oo reemiya bilis ragay dumarba ay isugu yimaadeen maxaa la yiraahdaa magaciisa habeenka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed. wow yaa kamida oo kulay anigu hadii la yiraahdo mid soo qabo gabdhaha soo qaban lahaayeen haldoorka yaa kamida dumarka Soomaaliyeed ee caawa halkan jooga. caawa adiguna in badan baa taqaanaa koo waxa ka ah Faadumo Hirad. wow wow ma sha Allah tabarakallah. dadku adduunka kale hadaynu Soomaalinahay waxa nalooga tagay
bini'aadanka dalkan aynu joognay America dadkoodii wax soo ahaan jiray wax soo qabtay ummadda soo hogaamin jiray ama macallimiinta ahaa ama wariyaasha ahaa ama ciidamada ahaa ama caafimaadka ahaa dhakhtarada ama madaxda ahaa wuxuun bay ugu yeelaan waa qiimeeyaan waa qadariyaan waana xasuustaan runtii waxaan halkaysi soo wada taagnay yani runtii taageerada aan u muujinayno dhammaan raggan oo dhan oo aniga in badan waan istaayarayn doona malaacirada waa iska ciracaanoode oo ragan garoomada ku daawan jiray weeye waa my heroes weeye ya waliba macallin qariidi iyo fuundi iyo isfuundi iyo marka laga soo bilaabo khaliif iyo isku dar runtii aad sharaf noogu tahay intayadana caawa halka isku helay qabaqaabiyaashina aad baan aadan ugaas iyo inta la shaqaysaba ugu mahadnaqaynaa runtii khaliif aweerka caawa la siiyay waxa weeye ciyaartooydii qaranka raggii ugu qiimaha badnaa waana mudan yahay anigu wuxuu ka mid ahaa ciyaaryaha la sii kala jeceliyo dadkan aad iyo aadka u jeclaa buu ka mid ahaa haddana dadkan isku magaalada ahayn Virginia ayuu ka mid ahaa marka khaliif hambaliyo sportiguna waligii sidan ayuu isugu duubnaanaya inta waxaan ku darayaa caawa horta halkan in badan baa yar qurux laga dhawaajiyay horta sportigu waa qurux annagu waxaanu jecelnahayna waa qurux waxaanu ka shaqeynana waa qurux waxaanu sportiga u metelaynay waxa weeye qof waliba sidaa uu jecel yahay caawa xafladda siduu yimi inuu u quruxsan yahay naftiisa iyo dharkiisa iyo wajigiisa uga soo shaqeeyay qof waliba sida uu jecel yahay quruxdiisa credit check hadii lagu sameeyo waa wajigiisa in la arko sida uu qurux badan yahay waxa weeye anagu dalkayagaanu qurxsanaynay dadkayagaanu qurxsanaynay calankayagaanu qurxinaynay inay mar walba quruxdaasi noqoto mid calankayaga aanu qurxsanayno mid aanu dalkayaga qurxinayno dadkayaga qurxinayno marka runtii quruxda inoogu dadaala Adnaan Guuleed waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga ee ka qayb galay ciyaarihii East and Central Africa ee lagu qabtay wadanka Kenya magaalada Nairobi Adnaan waxa uu ahaa ciyaartooydii isugu timid dhamaanba East and Central Africa wadamada ku ciyaaraya ilaa 10 kooxood waxa uu ahaa ciyaartooydii ugu iskoor badnaa ciyaartooygii ugu xirfad badnaa ee dhamaanba wadamadii halkaas isugu yimid marka sababtaas ayaan rabay inaan sheego waa ciyaartooy runtii aad u da'yar meel wanaagsan tiigsanaya waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inuu ka mid noqdo ciyaartooyda heerka NBA insha Allah salaam alaykum mar labaad mar saddexaad waa mahadsantihiin Aydruus waxaan kugu wareejinayaa league aan 7 sano soo waday waxaan kugu wareejinayaa inaan Soomaalida aan tusno in wax la wareejin karo ku soo dhaw walaalkay isku malaynaan ogeyn inaan meesha soo istaago waxaan isla buug mid hoos lagaaga dhiibayo weeyaan marka insha Allah waxaan la hadli doonaa waalidka kelmad kaliya oran doona insha Allah waxaan anigu ku jiraa sportska ciyaalkeenuna waxay u baahan yihiin in aad loo dhiirigeliyo waayo ciyaalka Soomaalidu waa ciyaalka ugu xirfadda fiican leh marka la eego ciyaalada ilaa haddana ma haysano ilmo professional noqday maamuus diidan ma jiro gaar ahaan iska daa qof hadda recovering politician oo siyaasi ahaa jiray aad baan u jecelnahay in la xuso marka waa ku mahadsantihiin midaan ahne warkiina soo koobo waa rabay laakiin waxaan rabaa hal mahmaah baa igu soo dhacday marka intay imid maantay iyo stage-ka markaa soo koray oo mahmaah nin halgame madow ahaa oo dhiijir Malcolm X uu yiri waa hore oo ahead tomorrow belongs to those who prepare for it today birito waxa iska leh ninka maanta u diyaar garoobo birito waxa iska leh qofka maanta dadaalo birito waxa iska leh qofka geesinimada maanta leh halkan caawa waxa loo yimid horumarka dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed waxaan idinkaga sheekeynayaa hadda ka hor anigoo ka imid miyi
oo 2 sano kaliya magaalo joogay gabar yarna ah walibana nimanka Soomaaliyeed dhinac bay ka raran yihiin waxay jecel yihiin gabdhaha cadcad haddaad madowdahay oo maanta dhan ag marayso waxaad moodaa xal inaad dambi ka gashay runtii waxaan rabaa wax yar inaan xasuusiyo bahda sportska meel kasta ay adduunyada joogaan ogaada shalay garoonka markaad gelaysay Soomaali baa ku sacabtumaysay garoonka ku soo safanaysay Soomaali ahaayeen kulligeen waa wada dareemi kartaan markaad makhaayad aad tagto cunto aad ku cunto lacagtaada waa la dhiibay cid dhiibtana ma taqaanid Soomaaliya dhiibtay laakiin waxaan ka codsanayaa bahda sportska maanta adduunyada ku nool ogaada reer hebel inayan ahayn dadkii shalay ku taagnaa Soomaali ahaayeen kaana Soomaali kaama mudna inaad maanta aad dhahda kii shalay ku sacabtumayay qadadaada bixinay quraacdaada bixinay inaad dhahda aniga reer hebel baan ahay idinma aqaano kaama mudna marka waa inaan xoqooda gudnaa Soomaali inta aan noolnahay